saake waxaanu idinku wareejinaynaa shirkadda la yiraahdo daryeel deegaan halkan dadka fadhiya waxa weeyaan waa shaqaalihii nadaafadda waa gaadiidkii birta culus oo ka shaqeynaya nadaafadda waxa weeyaan waa gaari weyn iyo cagafta iyo laba iska rogo weyn dadka halkan fadhiya oo nadaafadda ka shaqeynayana tiradoodu waxay ahayd 125 qof weeye afar darawal marka lagu daro 129 qof oo afar gaadiid ay tahay ayaanu saaka waxaanu jecelnahay idinka daryeel deegaana inaanu idinku wareejino dadkaan halkan ka soo jeedaa waa dadkii isugu jiray laba tiim bay u kala calaamadsan yihiin dadka qaba jalbaabka jalaha ahi cagaarka ahi waa dadka ka shaqeeya laamiyada iyo wadooyinka u qaabilsanaa weeye calaamadii lagu yaqaan taas ay ahayd dadka kalena meelaha kaambeynadu ka socdaan iyo magaalada daafiheeda ayay tiimka kalena ka shaqeeyaan iyo tagoga halka waxaas ka soo jeeda nimanka halkan fadhiya waa rarayaal rari jiray gaadiidka iyo waliba qayb inji 5 gaari bay ka rari jiray inji ka rarayeen saddexna laamiyada ayay ka rarayeen oo gaariga wiishka oo faarax wado bay la shaqeynayeen dhinacayga waxaa sii fadhiya darawaliintii gaadiidkii birta gaadiidka waday dawladda iyaguna waa kuwa kan saakay ujeedkan aynu halkan isugu nimi waxay tahay shaqadii la hayay iyo dadkii annaga nala shaqayn jiray iyo gaadiidkii shaqada nadaafadda lagu qaban jiray inaanu idinku sii wareejinno si shaqadii ay u sii socoto oo meesheedii aad uga sii wadaan annagu haddaan nahay shirkadda daryeel deegaan aad baan idiin soo dhaweynaynaa kalena caban mayno si fiicanna insha allah waa u wada shaqayn doonaa degmaduna waa ay nala shaqayn doontaa oo shaqada nadaafadda waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah ehelkeedii baana tihiin waxaana rajaynayaa saa uga soo bixi jireen iyo si ka wanaagsan bayna uga soo bixi doontaan annaga ka maamul ahaan insha allah biidnillaahi kariim hadalkii cabdulqaadir oo raacaya naga caban maysaan biidnillaahi kariim haddii ilaahay idmo shaqada tanna shaqa waxa waaye wadani oo si fiican insha allah aad u qaban doontaan awlaana waa hayn jirnay oo shaqadan waa haynay haddana insha allah shaqadii way sii ballaaratay sidana haddaad nadaafad maqashaan waxa maamula ama xukuma waa dawladda hoose weeye belediyada weeye hadday daryeel ku wareegtay iyo hadday hore iyagu gacanta uga hayeen qaybta publica kor iyaga ka maamulayay oo mataqaanaa magaalada iyo deegaanka iyaga xukuma iyagana u xisaaran iyaga dawladdii loo idmaday iyaga weeye kormeeradeeda iyo la xisaabtankeeda iyo dhaliishii ka soo noqotay intaba waxbay ku leeyihiin ama waxay u yihiin mataqaanaa maamulkii ugu sareeyay oo qaabilsanaa arrinta ayada